Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa Nabi Idris calayhi salaam. Si aan u bilowno muuqaalkeena, like saar, sidoo kale subscribe saar. Mahadsanid. Nabi Idris waxa uu ahaa nabi uu Ilaahay aqoon badan siiyay. Sidoo kale waxa uu ahaa nabi aad u cibaado badnaa. Waxa uu aad u yaqaanay cilmiga xisaabta iyo cilmiga xidigaha. Sidoo kale waxa uu ahaa qofkii u horreeyay ee wax qora. Waxaanu ahaa qofkii u horreeyay ee tosha dhar. Aftirsiga Nabi Idris waxa uu ahaa Idris ibnu Yarad, ibnu Mahlaa'iil, ibnu Khayraan, ibnu Anusha iyo ibnu Shiid, ibnu Aadam calayhi salaam. Sidoo kale Nabi Idris waxa uu ahaa nabi aad u cibaado badnaa. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa nebiyadu Ilaahay u soo diray inay dadka diinta gaarsiiyaan. Sidoo kale waxaa la sheegaa in uu ahaa qofkii bilaabay magaalada Baabil ee dhulka Ciraaq. Sida laga soo wariyay Nabi Idris waxa uu ahaa nabi runta sheega. Sida laga soo wariyay Ibnu Isxaaq waxa uu sheegay in uu ahaa Nabi Idris qofkii u horreeyay ee qalin wax ku qora. Nabi Idris waxa uu ahaa nabi aad u cimri dheer oo Alle cimrigiisa u siyaadiyay. Nabi Idris waxa la sheegaa in uu kulmiyay 400,000 awlaadiisa iyo wixii ay sii dhaleen si uu ugu yeedho in ay Alle ka cabsadaan, shirkigana ka tagaan, in ay shayaadiintana la dagaalamaan. Nabi Idris waxa uu dhashay 320 sano ka hor. Sidoo kale culimada ayaa sheega in uu ahaa Nabi Idris nabi aad u aqoon badnaa. Sidoo kale uu ahaa nabi aad u xikmad badan. Waxa uu ahaa Nabi Idris mid aad u yaqaana xisaabta iyo xidigaha. Sidoo kale waxa uu ahaa qofkii u horreeyay ee tosha dhar. Qaabkii uu u geeriyooday Nabi Idris waxa laga qoray sheekooyin badan iyo siirooyin badan. Waxaana ka mid ah in Alle subxaanahu wa tacaala uu u soo diray Nabi Idris malag si uu u geeyo samada afraad. Markii uu geeyay Nabi Idris samada afraad waxa uu kula kulmay malakul mowdkii ayaa waxa uu sheegay in uu Alle subxaanahu wa tacaala u soo diray si uu nafta uga qaado. Halkaas ayuuna ku geeriyooday Nabi Idris. Markii uu geeriyooday Nabi Idris waxa badatay macsidii ilaa heer ay gaadheen in ay samaystaan asnaam iyo dhagaxaan ay caabudaan. Haddaba muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. Haddii aad muuqaalka ka heshay, like saar, sidoo kale nagu dhiirigeli subscribe. Mahadsanid.